وهاجاك dhegeystayaal barnaamijkii hore aad dhegeysateen waxa inoo joogay waqtigii la dilay ninkii la oran jiray Kofil iyo gabayigii Sayid Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhdii ka sii wadayna haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu Soomaalida ku guubaabinayay inay Ingiriiska iska eriyaan dabcan guul darrada ku dhacday halgankiisii waxa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad Soomaaliyeed maxay ku diidanayeen maxayse dood ahayd aw jaamac Umar Ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyay doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey wadaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayay diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd iblis la soo diray oo ummadii laayay dadkii oo dhan ka dhigay xoolihii dhacay oo aan hore loo arag waxa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dawladda Ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la yiraahdo Taleex waxa Ingiriisku deetan halkaas ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka haray daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka Soomaalida ee ma ka tirsan dalka Itoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan waqtigaasi Ingiriisku niman Soomaali odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagan xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxkamada hase yeeshee Sayid Maxamed Cabdalla Xasan ergadaasi waa u diiday waqti yar kadib sayidka iyo ragiisi waxa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka Soomaalida ee degan dhinaca soodinta Itoobiya dabadeedna iyadoo oo ay taageero ka heleen Ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen Imey oo ku taala dhinaca Itoobiya halkaasi oo ay gaareen bishii Oktoobar sanadii 1920 dhammaadkii sanadkaasi oo ahayd 22 bishii December ayaa sayidku ugu dhintay Imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxa da'diisu waqtigaas ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri hadaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka Soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahirad qarshe hayno mariyo dalacaad jacayl baad kurtii noola dirirtane dubaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qorayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubahayaa dib u go'aysane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu idinka rari sidaa dameeraaye gidigeedba Soomaali baan dayrka ka ahaaye dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu ishaayeen mantu aan diyaafad iyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka وهاجاك dhegeystayaal inta hadaba aan kaga gudubno halgankii Sayid Maxamed Cabdalla Xasan dagaalkii uu kula jiray Ingiriiska